naasnuujinta baraxa tirana waxaa laga wadaa in ilmaha yar la siiyo naaska oo keliya lagana daayo cunto iyo cabitaan kale oo dhan. naasnuujinta ama nuujintu waa habka caanaha naaska hooyada loo quudiyo ama loo siiyo ilmaha yar. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku talinaysaa in naasnuujinta la bilaabo saacadda ugu horeysa ee uu ilmuhu dhasho. naasnuujintu waxay faa'iido badan u leedahay hooyada iyo ilmaha yarba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن صاحبيال سو دوادا waxaad ku soo dhawaataan aqoontiyada aan ku leeyahay baraha bulshada ee Dr. Samir Cabdullaahi Bootaan. haddii ay ku tahay markii ugu horeysay fadlan waxaan ka codsanayaa inaad noo soo follow gareyso ama noo subscribe gareyso. haddii aad ka mid tahay saaxiibada hore noola jooganaya waxaan ka codsanayaa inaad noo like gareyso, noo share gareyso, commentigaaga iyo fikirkaaga quruxda badanna aad nala wadaagto. maxaa yeelay like-ta iyo share-tuba way socodsiiyaan barnaamijka. aad ayaad u mahadsantahay. موضوع مانتي ميسك إنه صارنا وحويهي ناس نوجين محيا لو حلو جرا أسبوع ناس نوجينته أسبوع الناس نوجينته وحكب لو ذا كود أغسطس إلا يتضبط أغسطس أسبوع عاسي وحل حسا أما لو دبلدقة أما لو أستيي إن وعي قلنته ناس نوجينته صار له قاضو إن هو يوم بدن وبد كودا ناس نوجينته أسمي لهايين فإذا كهلايان المها يهو يضبا لإسكو برارجيو ناس نوجينته أما نوجينتو waa habka caanaha naaska hooyada loo quudiyo ama loo siiyo ilmaha yar. caanaha naaska hooyada ilmuhu waxay si toos ah uga nuugi karaan naaska amaba waxaa la sameyn karaa in loo liso ilmaha. sababaha keeni kara in naaska hooyada la lisana waxaa ka mid ah kow in ilmaha iyo hooyadu ay kala fog yihiin amase inay jirto cillad taasi oo aan ogolaanaynin in naaskii uu nuugo ubadkii yaray ama asaga uu xanuunsan yahay ama cillado kale ay jiraan. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay ku talinaysaa in naasnuujinta la bilaabo saacadda ugu horeysa ee uu ilmuhu dhasho lana wado ilaa inta ay ilmahaasi yari ka doonayo ama uu ka nuugayo caanaha naaska. hay-adaha caafimaadka oo ay ugu horeyso WHO waxay ku talinayaan in naasnuujin barax tiran loo sameeyo ilmaha dhashay 6 bilood ee ugu horeysa noloshooda. taasi macnaheedu waxay tahay naasnuujinta barax tirana waxaa laga wadaa in ilmaha yar la siiyo naaska oo keliya lagana daayo cunto iyo cabitaan kale oo dhan. keliya la siiyo fiitamiiniska qaar haddii uu u baahdo. sidoo kale hooyooyinka dhalay ilmahaasi yar waxaa lagula talinayaa in marka ay siiyaan 6 bilo ugu horeysa naasnuujin barax tiran inay sii wadaan nuujinta ilmaha caanaha naaska ayagoo u raacinaya cuntooyinka iyo cabitaanada oo u baahan yahay. taasi macnaheedu waxay tahay in ilmaha yar naaska la nuujiyo cunto iyo cabitaan loogu daro ilaa intuu ka gaarayo muddo 2 sano ah. qiyaastii 135 milyan oo dhalaan ah ayaa ku soo biirta sanad walba adduunka. caruurtaasi adduunka ka dhalata 42% oo kamida ayaa loo sameeyaa naasnuujin saacadda ugu horeysa noloshooda. halka 38% ilmahaasi dhashay ay hooyooyinkood u sameeyaan naasnuujin barax tiran 6 bilood ee ugu horeysa noloshooda. 58% ayaa ilmaha adduunka ku dhasha hooyooyinkood nuujiyaan ilaa ay ka gaaraan da'da 2 sano. taasina waxay la micno tahay in 42% ilmaha adduunka ku dhasha aan naaska la siinin ilaa ay ka gaaraan da'da 2 sano. naasnuujintu waxay faa'iido badan u leedahay hooyada iyo ilmaha yarba. kor u kaca naasnuujinta adduunka gaar ahaan wadamada dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa meel dhaxaadka ahba waxay ka hortagaysaa qiyaastii dhimashada 820,000 oo caruura kana yar da'da 5 sano oo sanad walba ku geeriyoota adduunka. haddii naasnuujintu ay sare u kacdo waxaa yaraanaysa dhimashada caruurta gaaraysa 820,000 ee sanad walba ku dhinta adduunka. naasnuujintu waxay yareysaa khatarta caabuqyada neefmareenka, caabuqyada dhegaha, xanuunada ay u dhintaan ilmaha yaryar ee degdeg ah iyo waliba shubanka ku soo laalaabta ama ku dhaca ilmaha yar ee wadamada soo koraya iyo waliba wadamada horumaray labadaba. faa'iidooyinka kale ee naasnuujintu u leedahay ilmaha yar waxaa kamid ah yareynta khatarta neefta,
sidoo kale xasaasiyadda cuntada iyo weliba cudurka macaanka. Ilmaha loogu roonaado naasnuujinta waxay ka badbaadaan intooda badan khatarahaasi. Sidoo kale naasnuujintu waxay hagaajisaa kobaca garashada cognitive developmentiga ilmaha, waxayna hoos u dhigtaa imaanshaha cayilka xilliga qaangaarka. muhiimadda ugu weyn waxay tahay in garashadu ay aad u siyaado ilmaha ay ka naasnuujin badan yihiin. faa'iidooyinka naasnuujinta ay u leedahay hooyada waxaa ka mid ah: hooyadu waxay ka faa'iidaan naasnuujinta xaddiga dhiigga dhalmada ayaa yaraanaya. dhiigga aan u naqaano nifaaska ama dhiigga dhalmada xadka ka imaanaya hooyada ayaa yaraanaya. minka hooyada ayaa si fiican u aruuraya. waxaa loo baahan yahay inuu la ekaado intiisii hore intuusan ilmuhu ku beermin. sidaas darteed naasnuujintu way ka caawisaa hooyada. 3, waxaa hoos u dhaca niyad-jabka ka dhasha dhalmada. dhalmadu waxay leedahay niyad-jab kuwaasoo ku yimaada hooyooyinka dhala ilmaha. xanuunkaasi ayay hoos u dhigtaa naasnuujintu. naasnuujintu sidoo kale waxay dib u dhigtaa ama celisaa caadada dumarka. taasina waxay muhiim gaara u tahay taranka, oo hooyadu intay naasnuujin fiican samaynayso ma ku dhacayso caadada. waxaa jira faa'iidooyin kale kuwaasoo muddo dheer ee hooyadu ka helayso naasnuujinta. waxaana ka mid ah hooyooyinka naasnuujinta sameeyahi waxaa ku yar ama hoos u dhaca khatarta kansarka naasaha ku dhaca. sidoo kalena khatarta cudurrada wadnaha ayaa yaraada. sidoo kale cudurka macaanka iyo weliba rheumatismada ayaa iyaduna ka yaraata. naasnuujinta hooyada ee ilmaheeda yar ayaa ka qaalisan caano kasta oo ilmaha yar ee la diyaariyo. haddii aad nala soo gaartay gabagabada muuqaalka, aad baad ugu mahadsan tahay la socoshadaada. haddii aad wax ka faa'iiday, waxaan ka codsanaynaa inaad like-ta iyo share-ta nagu caawiso. waan kaaga mahadcelinayaa la socoshada wacyigelintii caafimaadka qaybtii 1 ee naasnuujinta.